كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركii 189 qaybtii afaraad ee su'aalaha iyo jawaabaha iyo su'aalihi iyo jawaabihi aan iska weydiinayna dhinaca nafaqeynta ubadka. waxaan soo gaarnay qaybtii u dambeysay. waxaan isla eegaynaa dhibaatooyinka ama mashaakilka ama sidoo kale cudurrada haddii maaragtay dhinaca nafaqada markaa ku yimaada ciyaalka yaryar. qaybta ugu horeysa waxaa la yidhahdaa waxyaabaha marka cuntada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah ubadka waxyaaba ku yimaada in ubadka cuntadii marka ay diidaan ama ay ka caagaan ama ay ka cararaan ama ay nacaan ama saas oo kale. marka oo waxa la yidhaahdaa mar kastaba ciyaalka markay yaryar yihiin de macmacaanka yar iyo biskullada iyo chocolateska iyo waxaasay markaa waa maxay iska jecel yihiin. oo markaa cuntadii muhiimkaed marka la siiyo oo afkileeda loo geliyo uu soo celinayo ama markaa waa maxay uu diidayo waalidkiina markaa maxay ay culays ku noqonayso oo maaragtay iyaguna awood markaa isticmaalaan mararka qaar ay noqonayso. marka 5 qaacido ama 5 markaa talo oo muhiim ah ka bixinana in markaas oo kale la sameeyo. talada koowaad waxa weeye baa la yiraahdaa horta marka hore macnaa huduu'ik macnaa si yar oo degan maaragtay ayaad horta cuntadii wixii ugu keenaysaa adiga waxa la markaa dee la qoslaya ama la dhoola cadaynaya isla markaana waxa la kala qayb qaadanaya cuntadu uu cunayo markaa walow waxa la wax yarna ha noqoto ama yar ka qaado ama adigu shaah yar soo qaado baa la yiraahdaa. marka inaad kala qayb qaadatid baa muhiima waayo waxa la isaga waxyaaba muhiimka u siiyaa waxa la yiraahdaa inaad isaga ag fadhidid oo dhinaciisa aad tahay ilmaha yar ayaa wax kasta uga muhiimsan. taasi waa talada koowaad. talada labaad waxa la yiraahdaa waxaad isku daydaa marka inaad macnaha qalbigiisa ama wajigiisa ama jirkiisa markaa waa maxay aad farxad ku abuuri kartid. marka farxad markaa waa maxay aad waa maxay gelin kartid markaa cuntada isticmaalay sidee u gelinaysaa waxay yiraahdaan waxyaabo yaryar oo markaa qurqurux badan ama ha noqoto waxyaabo ciyaar ku ciyaaraan ama waxyaabo yar oo maaragtay markaa ciyaalka inta badan sawirro iyo ku sawirro ha noqoto baa u soo qaadaysaa markaa isla markaana intaa cuntada ku dhex jiro adiga markaa la sheekaysanaya marka cuntada uu diidi lahaa way yaraanaysaa. saddexaad waxa la yiraahdaa markuu cuntada diido waxba markaa maxay caara iyo macnaha waxa la yiraahdaa hysterecine ama waxba caara marka waxa la yiraahdaa maxay sameeynin baa la yiraahdaa ha iska tago marka haddana 2 daqiiqo ka bacdi 3 daqiiqo ka bacdi ayaa marka waxa la yiraahdaa marka waa maxay ku noqon marka oo ku celi marka haddana macnaha waa maxay sawirkaaga macnaha halkaa waa maxay hayar bato markuu tago ka caro diido uu tufaamo san sameeyo faraha ka yar qaado xaaladdiina aad maaragtay ugu yar kulushahay 3 daqiiqo ka bacdi 2 daqiiqo ka bacdi ku noqon marka oo siiba haddana la yiraahdo. saddexaad iyadana waxa wata afraad waxa weeye meesha uu wax ku cunayo ama dariiqada iyo qaabka uu wax u cunayo iyadana qayb lixaad bay ka qaadataa oo waxa la yiraahdaa waxa fiican baa la yiraahdaa in caado loo sameeyo iyo waqti iyo nidaam iyo qaab iyo meel gaar ah oo uu la qabsado oo uu barto oo waa maxay jawi cunto oo meel fiican uu ku cuni karo oo diyaarsan ah oo macnaha waa maxay ilmuhu jeclaan karo iyada laftigeeda. meeshay kaa qabato ama soo qolka taagan ama meesha aan markaa waa maxay aanay yar foodo aanay yar noqon baa la ta u dambaysa waxay yiraahdaan iyadana aad inaga inooga sii muhiimka ahba waxa la yiraahdaa waqti ku filan oo munaasib ku ah oo fiican oo waasaca si baa la yiraahdaa hana ka degdegin marka macnaha waxa laga yaabaa dhab ka sii baxay hawl wada caana ku qabanay adiga waxa laga yaabaa iska hurdo ku ah iska daalan badan bariis afka u gelinaysa ana moralkiisii ama ilmaha niyadiisii waxaan maba soo jeedaba marka adigana waxa laga yaabaa inaad daalan tahay ama hawlka la tuma qorsan tahay ama shay kale baadka waxa laga yaabaa adiga cunto sameynaya xaggana waxa laga yaabaa ilmaha wax ka siinaysid xaggana waxa laga yaabaa maxay in mid kale caana ka siinaysid mid kale laga yaabaa halka fadhiyaad mataqaanad kala hadlaysid waxa sidaas samay mid kale laga yaabaa in albaabki garaacay marka macnaha jawiga noocaas qofka ilmihi raba maxay waxay keenaysaa in cuntadii marka uu diido. laakiin marka bal hadda marka adiga aad ag fadhidid aad dhoola cadaynaysid aad la sheekaysanaysid aad wax yar ku ciyaaro aad soo ag dhigaysid aad mataqaanaa ku caroonaynin aad waqti aad siinaysid hadduu ka tago aad u yar dulqaadanaysid aad waqtigaa uu cuntada waxa uu samaynayo mooy wax kale aad qabanaynin
dee ilmo cunto diidayo cunto ka cararaya markaa waa maxay meesha ma imanayo. Marka shantaa talo aad bay muhiim u yihiin. waxyaabaha kale dhibaatooyinka kale nafaqada ku yimaada waxaa ka mid ah baa la yidhahdaa suu taqdiya. waxa la yidhahda markaa cunto xumo inay ku dhacdo. cunto xumada iyada waxa keenta baa la yidhahdaa laba mid bay noqon kartaa. in waxa la yidhahdaa cuntada ilmihii intii loogu talagalay marka ay dhaafto oo macnaha cuntadas waxay ka koobnayd ama dee ilmaha agekiisa ama da-diisa ama wixii markaa la siin lahaa muhimka u ahaa in ka badan ay noqoto har ilmo cuntada macnaha cunto xumo ku dhacdo. ama waxa la yidhahdaa waa maxay waa maxay cunto yaraan ay ku dhacdo markaasoo cuntada waxyaaba ay ka koobnaan lahayd ama ilmaha waxay ku habboonaa aanu helinba markaa. taasina waa maxay ay cunto yari markaa waa maxay ay ku keento markaa. marka waxyaabahaas waa maxay iyagana markaa waa maxay keenayo oo hadba waxay ku xidhan tahay duruufta qofka hadba suu maxay cuntada u maamulo oo u hagaajiyo ku xidhan tahay. tayaduna inta badan caanka ah ee ugu dambaysa qaybta mashaakilka waxa weeye waa cunto yari ama wax la yiraahdo marka malnutritionka oo wax la yiraahdo waliba markay qolyahan hay'aduhu ay ka sheekeynayaan ay yiraahdaan marka dawladaha hoose ama dawladaha waxay dhahaan marka ana aad u tamarta yar macnaha taas aad bay ugu badan tahay bay dhahaan nambaro aad u badan bay sheegaan. macnaha taasina waa maxay malnutritionka ama nafaqa yaradaasna aad bay ugu badan tahay qofka ku xiran tahay. waxay ku xiran tahay qofkaasi dawladdu hoos joogo dalku hoos joogo environmentigu joogo waddanka cuntada laga cunayo sida loo kantaroolayo ilmihii sida wuxuu helayo duruufta qofka ama familiga ama taqaana ku hereeraysan si cuntada u heli karo waxaasoo dhan bay ku xidhan tahay. marka waxyaabo yaro kala muhiim iyagana way keeni karaan oo kuwa iyagana maxay waxa ka mid ah in salahan ilmaha waa maxay ciradiisa ama waa maxay qaybta cuntada maxay sii sheegi lahayd ama sii dhaafi lahayd ay markaa waa maxay dhibaato ku timaada marka ama khalkhal ku yimaado. ama sidoo kale dhinaca dheefshiidka cuntada marka cuntada dheefshiid lahayadana waa maxay ay dhibaato ku timaado. ama sidoo kale in ilmaha waa maxay cudurro kale ama chronic disease wax la yiraahdo ayaa ubadka maxay cudurro kale marka ay ku dhacaan ama ay leeyihiin haddii cudurka ula saaxiib yahay ilmihii dee cuntada meesha way ka baxaysaa marka nafaqa yari marka waa maxay iyadana marka waa maxay ka imanaysaa. cudurrada kale marka intaas waa waxyaabaha mashaakilka ama dhibaatooyinka inta badan dhaca. cudurro badan baa iyagana jira marka kuwaas iyagana qaybta marka hadday borotiinku marka maxay ku yaraato oo kale kuyushi koor waxay dhahaan baa jira isagoo haddii ilmihii maxay borotiinkii uu cuntadii ama dietkii borotiin baanu lahayn cuduradaas oo kale marka maxay ku dhacaya marka. waxaa kaloo ka mid ah isaguna haddii macdantii oo kale ama dee irontii jirkiisa ay ku yaraato iyadana waa maxay degree baa ku dhacaysa. sidoo kale haddii marka calciumtii ay ku yaraato iyadana waa maxay dee lafihiisiiba daciifaya oo jilcaya marka. sidoo kale waa maxay haddii zinkiga marka iyadana ay ku yaraato koritaankiisiibaa dee ilmihii waa maxay yaraanaya isna hoos u dhacaya. sidoo kale waa maxay dee araggiisii iyo dhadhankiisii iyo urtiisina way saameynaysaa. sidoo kale waxay dhahaan faytaminada oo kale haddii vitamin A ilmihii ku yaraato oo kale waxay keenaysaa macnaha aragtidii oo kale ama indhihiisu aan uga arki lahaa marka waa maxay inay hoos u yaraadaan oo kale. sidoo kale vitamin D oo kale haddii ku yaraato iyadana waxay keenaysaa markaa dee jir macnaha lafihiisa waxaasina maxay inay markaa yaraadaan. waxyaabo badan baa jira oo ubadka waa maxay nafaqadaas ay cudurro badan ay ku keeni karta iyo dhibaatooyin badan. xasaasiyadoo kale hadduu ku leeyahay iyadana waxa waalidku inuu ogaado weeye macnaha cuntooyinka ilmuhu xasaasiyadda ka qaaday dhakhaatiirta marka ay kala tashato. waxaa ka mid iyadana marka loss of appetite-ka oo kale haddii ilmuhu cuntada uu diidayso appetite xumo ay jirto oo kale ama hadduu maxay weakness uu jiro ama dacfi uu jiro marka waxyaabahaasna waxay ka mid yihiin waxyaabaha marka waa maxay ka mid ah oo qaybta nafaqada. marka wixii casharada ku saabsanaa nafaqeynta ubadka sidee loo nafaqeynaya da'dee lagu nafaqeynaya maxaa la siinayaa iyo sidoo kale dee mashaakilka dhibaatooyinka ay kala kulmayaan casharkaasa ugu dambeeya wallahu subxaanahu watacaala aclaa wa aclam.